Assalaamu calaykum walaalahayga qiimaha badanow. Waxaan idin wadaa duco aad iyo aad u qiimo badan. Ducadaas oo ah haddii uu qofku dambaabo, haddii qofkas uu dembigiisa u bato, uu Rabbi subxaanahu wa tacaala ugu toobad keenayo, uu Rabbi subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf ku weydiisanayo. Waxaa laga yaabaa maalintii inaad intaasoo jeer aad dembi aad gashid, intaasoo jeer uu khalad uu kaa dhaco. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhaahday, anigu waxaan u toobad keenaa Rabbi subxaanahu wa tacaala, waxaan Rabbi subxaanahu wa tacaala aan dembi dhaaf weydiistaa maalintii 70 jeer. Qofka saas dhahaya waa khayru khalqillaah, waa rasuulkeeni suubana Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Marka maxaad moodaysaa annagoo bili aadano maalin walba dambaabayna oo maalin walba khalad ku xun yahay samaynana. Rabbi subxaanahu wa tacaala adoomadiisa wuxuu ugu jecel yahay kuwa mar walba u dembi dhaaf ka weydiisa, kuwa mar walba mataqaanaa aan ka quusanin Rabbi subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiista. Walaalkayga muslimka how mar walba ha ilaawin Rabbi subxaanahu wa tacaala inaad u toobad keentid, marnaba ha ilaawin wax walba oo aad samaysid, dembi walba oo aad gashid. Rabbi subxaanahu wa tacaala samadiisa way furan tahay. Rabbi subxaanahu wa tacaala waa qafuurur raxiim. Rabbi subxaanahu wa tacaala waa kan dembiga iyo wax walba dhaafa. Rabbi subxaanahu wa tacaala wuu kuu dhaafayaa wax walba, balse niyadaada si lilaahiya, niyadaada ha ka soo go'do inaad Rabbi subxaanahu wa tacaala aad u toobad keentid oo aad Rabbi subxaanahu wa tacaala xiriirka idin dhexeeya aad wanaajisid. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhaahday, marka uu u dhow yahay addoonku rabbigiisa waa marka uu sujuudsan yahay, uu salaada ku jiro. Rabbi subxaanahu wa tacaala markaasoo kale Rabbi subxaanahu wa tacaala toobadda uu ka aqbali karaa, waa uu ka aqbalayaa. waa marka uu Rabbi subxaanahu wa tacaala u dhow yahay. Rabbi subxaanahu wa tacaala haddii ay salaadaadu wanaagsanaato, Rabbi subxaanahu wa tacaala xiriirkiinuna waa wanaagsanaanaya. Marka walaalkayga muslimka how salaadana ha ilaawin mar walba. Rabbi subxaanahu wa tacaala haddii aad salaadiisa aada tukan, xiriirkiisana waxa kaliya oo Rabbi subxaanahu wa tacaala aad xiriirkiisa ku soo celin kartid waa salaada. Walaalkayga muslimka how salaada marnaba ha ilaawin, marnaba salaada ha ka tagin. Macquul noqon mayso Rabbi subxaanahu wa tacaala ayaan u toobad keenayaa, xiriirkiisana waan jarayaa, oo xiriirna Rabbi lama lihi waan u toobad keenayaa. Wax macquula maaha. Marka ugu horeysa salaadaada hagaaji, kadibna Rabbi subxaanahu wa tacaala ducadiisa akhriso. Rabbi subxaanahu wa tacaala digrigiisa badi. Rabbi subxaanahu wa tacaala bari oo ka bari inuu Rabbi subxaanahu wa tacaala ku dembi dhaafo. Rabbi subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiiso. Rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam ayaa maalintii 70 jeer in ka badan Rabbigan subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiistaa. Marka maxaad moodaysaa marka annagoo xaaladda aragti ku jirna oo maalin walba waxaad aragtay samaynayna, maalin walba dembi samaynayna. Waxa uu yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasallam, marka uu addoonku ugu dhow yahay rabbigiisa waa saqda dhexe habeenkii iyo marka uu sujuudsan yahay, markaas ayuu Rabbi subxaanahu wa tacaala addoonkiisu u dhow yahay. markaasoo kale Rabbi subxaanahu wa tacaala ka bari toobadkeen oo Rabbi subxaanahu wa tacaala weydiiso dembi dhaaf. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxaa kaloo uu yidhi, wardadow Rabbi u toobad keena. Anigu waxaan Rabbi subxaanahu wa tacaala u toobad keenaa maalintii 100 jeer in ka badan. Marka Rabbi subxaanahu wa tacaala u toobad keena oo Rabbi subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiista, waa midka dembiyada cafiya, waa qafuurur raxiim. Rabbi subxaanahu wa tacaala toobad keen weydiiso, annagana Allah noo dembi dhaafo.